imika warkii oo dhameystiran maamulka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ku xiray laba gabdhood oo muxajabaad ah sababo la xiriira in shareer ay qaateen warkan waxaan u faahfaahinaya wariyaheena maxamed cali maamulka galmudug ayaa shalay oo arbaca ahayd xabsiga u dhaadhiciyay laba gabdhood oo xirnaa niqaab gabdhahan ayaa la qabtay iyagoo danahooda raacanaya islamarkaana maraya mid ka mid a wadooyinka waaweyn ee magaalada dhuusamareeb ciidamo ka tirsan kuwa ay dowladda federaalka halkaasi geysay ayaa gabdhaha ku soo xoomay kadibna waxay ku bilaabeen inay tureeyaan qasabna uga furaan niqaabka iyagoo weliba si xun u aflagaadeynaya gabdhaha ayaa intaasi kadib ciidankii ka dalbaday inay dariiqa u baneeyaan si ay guryahooda u aadaan marba haddii ay ka qaateen niqaabka balse waxaa loo sheegay inay dembi weyn ku dhaceen ayna mudan yihiin in la xiro waxaana loo dhaadhiciyey xabsiga gabdhaha ayaa la dhex marsiiyey magaalada iyagoo oynaya ilintuna ka qubanayso mana helin cid garab siisa oo kala hadasha ciidamada qof ku sugan magaalada oo magaciisa u qariyey sababo ammaan ayaa inoo sheegay in haweenku ay ahaayeen kuwa ku cusub magaalada walow dad kale ay sheegeen in gabdhuhu deegaan ahaayeen balse ku qaldameen isbeddelkii ku yimid maamulkii suufiyada oo isagu dhowr sano ka hor xaaraan ka dhigay niqaabka iyadoo ay sidaa tahay waxaa isla shalay xarunta maamulka galmudug lagu arkayay haweeney ajnabi ah oo wadata labis aad u liita iyadoo soo bannaysatay madaxa lugaha iyo qaybo kale oo jidhkeeda ka mid ah haweenaydaas ayaa dhuusamareeb ka noqotay qof marti sharaf ah oo soo dhoweyn mudan halka gabdhihii muslimaadka ahaa ee is asturay ay noqdeen duka cambaar leh oo kale oo la ugaarsado dhuusamareeb oo keliya ma ahan meelaha sida aadka ah lagula dagaalamo shacaa'irta islaamka waxaa horey niqaabka looga mamnuucay magaalada baydhabo ee gobolka baay kadib amar ka soo baxay maamulka koonfur galbeed wararka galgaduud ayaan ku guda jirnaa xiisadaha ka dhashay magacaabista dhowr madaxweyne ayaa ka aluursan qaybo ka mid ah gobolka galgaduud wararka inaga soo gaaraya gaalkacyo waxa ay ku waramayaan in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xaaf uu ku doonayo inuu kusoo magacaabo golihiisa wasiirada axmed ducaali geele xaaf ayaa dhowaan baarlamaan ku dhisay magaalada gaalkacyo isagoo sheegay inuu yahay madaxweynaha galmudug uuna dhammaysanayo waqti kaga haray muddo xileedkiisa dhowaan ayaa magaalada gaalkacyo waxaa laga dhisay baarlamaan lagu sheegay kii labaad ee galmudug waxaana ay soo doorteen guddoon iyagoo isla gartay in xaaf uu madaxweyne u noqdo xaaf ayaa dowladda federaalka muddo wada hadallo kula jiray waxaana uu in muddo ah ku sugnaa madaxtooyada taasi oo lagu tilmaamay in awoodiisii ay kula wareegtay dowladda federaalka markii uu madaxtooyada ka dhaqaajiyo uu gaaray gaalkacyana waxa uu sheegtay inuu weli yahay madaxweynaha galmudug dowladda federaalka nin ay wadato oo qorxoor la yiraahdo ayaa dhowaan dhuusamareeb loogu doortay inuu yahay madaxweynaha galmudug horeyna suufiyadu waxa ay dhuusamareeb madaxweyne ugu doorteen shaakir oo ka mid ah saraakiisha suufiyada xiisada colaadeed ayaa laga soo warinaya gobolka gado dowladda federaalka ayaa ciidamo iyo gaadiid ku daabulaysa gobolkaasi iyadoo suurtagal ay tahay inay fooda isdaraan ciidamo taabacsan jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka saacadii lasoo dhaafay ayaa la sheegayaa in saraakiil ciidamo iyo gaadiid dagaal ay gaareen degmada beled xaawo ee gobolka gado halkaas oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan magaalada beled xaawo ayaa hore waxa uu sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo taageersan cabdirashiid xasan janan oo sida la sheegay dhowaan ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa ku goodinaya inay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda federaalka ee la wareega magaalada beled xaawo gobolka gado odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi ku sugan ee taageersan shisheeyaha ayaana ka digaya in magaalada ay ku hardamaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland cabdikariin xuseen guure oo soo noqday madaxweynaha galmudug wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalkana iyo amniga mar ku soo fashilmay ayaa dhanka kale ka hadlay xiisadaha ka aluursan gobolka gado waxaana uu eed dusha kaga tuuray dowladda federaalka qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in dowladda federaalka abaabul iyo guluf dagaal ay ka wado gobolka gado oo ay ku daabushay ciidamo badan oo ayaan daro in dowladda Soomaaliya halkii laga sugayay in awoodda ciidan ay haysato ay ku wajahdo al-shabaab ay iminka abaabul iyo guluf dagaal ka bilowda degmooyin ka tirsan gobolka gado ayuu ku yiri qoraalkiisa ayuu ku sheegay in dowladda federaalka uu baaqayo inay joojiso dhaqdhaqaaqa iyo gulufka dagaal ay ka wado gobolka gado isla markaana khilaafka kala dhaxay maamulka Jubbaland ay ku xaliso wada hadal halkii ay adeegsan lahayd xoog xoolo iyo askar dhanka kale dowladda federaalka ayaa Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso amniga iyo siyaasadda Soomaaliya tafaasiil warka ku saabsanna waxa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Goodax dowladda federaalka ayaa eedeyn u jeedisay dowladda Kenya oo ay ciidamo ka joogaan qaybo ka mid ah gobolada Gado iyo Jubbooyinka war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda islamarkaana uu ku saxiixan yahay wasiirka warfaafinta ayaa waxaa lagu muujiyay in Kenya ay ku xadgudubtay siyaasadda iyo amniga Soomaaliya war-saxaafadeedka ayaa u muuqda mid aan wax badan qeexi karin iyadoo laga dhidhinsan karayo inaanay dowladdu luqad cad oo diblomaasiyadeed ku gudbisa karin cabashada ku aadan Kenya
warkan ayaa soo muuqda mid ay dowladdu uga jawaabayso tallaabada ay Kenya ku soo hubaysay Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga ee Jubbaland iyo saraakiil kale oo diidan in ciidamo ka socda dowladda federaalka la geeyo qaybaha ay Jubbaland ka joogto Gado. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in faragelin aysan u fiicnayn xiriirka labada dowladood iyo waxa loogu yeeray la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo Islaamka. dowladaha Kenya iyo Itoobiya ayaa si aad ah u karkarinaya qorshe ay muddo dhowr bilood ah ay diyaarinayeen oo ah inay iska hor keenaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland iyagoo waliba meelaha qaar colaadaha ka qabyaaladeynaya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa Kenya u arka caqabad weyn oo ku hargudban saas oo ay tahayna waxba kama qaban karo waayo inta uu isagu ka taliya Soomaaliya iyo inta Kenya ay haystaan waxa badan dhulka ay Kenyaatigu qabsadeen ee uu amarkoodu ka shaqeeyo. waad maasantahay beesha wacisle ayaa dooratay suldaan guud oo ay ku midaysan yihiin kadib munaasabad ka dhacday degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. warkan waxaa noo diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Cabdisamad Cabdullaahi. munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada Ceeldheer ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud taasoo lagu doortay Suldaan Daawud Xasan Aadan oo noqday suldaanka guud ee beesha wacisle ee Soomaaliya. halka ay munaasabadu ka dhacday ayaa waxaa isugu yimid 500 oo qof oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada. munaasabada waxaa si gaar ah uga muuqanaya 50 oday dhaqameed oo ka tirsan beesha wacisle oo ka kala yimid dhammaan gobolada ay beeshu degto. munaasabada waxaa kale oo ka muuqanaya ardayda iyo haweenka beesha wacisle iyadoona munaasabadu ay ka dhacday dabaq dhul ballaaran ku fadhiya. waxaa kale oo xafladda ka soo qayb galay oo iyaguna xaadir ahaa boqolaal ka tirsan barbaarta gaashaaman oo ka kala yimid deegaamo kala duwan oo ay degto kuwaasoo mid waliba ah watay laashim ku xeel dheer shiribka. wufuud ballaaran oo ka tirsan beesha wacisle oo isugu jira ganacsato, nabadoono, abwaano, laashimiin iyo dhammaan bulshada reer wacisle ayaa qayb ka ahaa munaasabada kuwaasoo ka yimid gobolka Banaadir. doorashada suldaanka oo socotay muddo 2 maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wilaayada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud sidoo kale wufuud iyo marti sharaf ka kala yimid wilaayada Banaadir, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Mudug iyo Galgaduud. waxaana inta badan munaasabadaas ka hadlay mas'uuliyiintii iyo waxgaradkii ka qayb galay. ugu horeyntii qaar ka mid ah nabadoonada jufooyinka kala gedisan ee beesha wacisle ayaa ka hadlay munaasabada waxayna si gaar ah ula hadleen suldaankooda oo ay doorteen. waxaana ilaahay ka rajaynaynaa suldaanka beesha wacisle inuu ilaahay u fududeeyo oo cadaalad nagu hogaamiyo oo kitaabka ilaahay nagu hogaamiyo idina aad garba u naqataan. annaguna waa dardaarane waxaan kula dardaarmayaa inuuna u kala eelan, inuuna u kala leexan, inuuna diinta ilaahay cadaalad yara ka samaynin. xasan aadagood waxaan u sheegayaa ilaahay arrintaas hawshaas la garab galo. waxaa jira waxa meesha yaala hadii la yiraahdo hayya cala salaat, hayya cala salaat hadii la yiraahdo salaadan u baxna guriga waa la xiraa war salaadii loo galay yeeraa la leeyahay. waxaa laga tagay oo meesha ka maqan hayya cala al-jihaad, hayya cala al-jihaad hadii la yiraahdo waa in suldaanku oo ugu horeeyo oo beesha wacisle oo hogaamiyo sidaas ayaa laga rabaa. intaas kadib waxaa munaasabada ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle Suldaan Daawud Xasan Aadan wuxuuna beeshiisa ka codsaday inay la shaqeeyaan oo ay ku garab galaan hogaanka ay u dhiibeen. mas'uuliyadaas ay ii magacaabeen anigu ma dooran ayaga i doortay meesha laygu dooranayana ma joogin. waxaan ka rabaa marka mas'uuliyadaas inay garab igu siiyaan culayska badan. mas'uuliyadu waxay u baahan tahay talabay u baahan tahay, waxay u baahan tahay tigaad ay u baahan tahay abamaal bay u baahan tahay. maantana waxa weeye wacislo dham way wada joogaan, abgaal ismaana wada jooga, akhyaartiisii iyo imaamkii abgaal waa fadhiya. waxaa jooga beelihii dhamaaya markaati ka ah ee deganay gobolada deriska iyo gobolkaynaba. waxaa la rabaa marka inaad ugu garab gashaan arrintaas
far kaligeed foolka ma dhaqdo hadaa tirada waa lagu duubay suldaan baa tahay ay dhaqaaq waxay lahayd dhibaatadeeda leedahay gabagabadii waaliga walaayadii islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Kabugu tukade ayaa isna munaasabada ka hadlay wuxuuna la dardaarmay suldaanka cusub oo ay dooratay beesha Wacisle iyo sidoo kale hoggaan dhaqameedka beesha guru waxaan ahayn ummaduna inay la'atoy baaba'da ka fiican quraan la noolaato waana soo aragnay ayadoon xoolo naga maqnayn oon kitaab naga maqnayn oo rag naga maqnayn oo hub naga maqnayn waa ogeydeen waxaan fili jiray soo ogeydeen walaalka doox qofkan dil jidka isbaarada nacarad iyo baqtiga ka shaqay jirin maxaa bila quraanan ahna wala urnaga ma soo bixin urki idan ummadda muslimiinta كما قالوا هذا ومن استغفر من الله قيل ومن استغفر من الله حديثا أيام وحن كديارسي شريعة طبعا آيات أو كل جود شيء وحي شيء كل جود هذي اللي سكر ماشي خير كانوا كجرو سو خير ما وعرفنا ولا يقول لي هاي وأن تصوموا خير لكم يا وجنا خير نته إلها لكن أنا وأنا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون آيات كلها كلها عسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم آيات كلها كلها وإن تخفوها مركوا كان الله إنفاق تكافل اجتماعي وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم codadkii laga jeediyay munaasabadan aad ayay u badnaayeen qaybo badan oo ay kamid yihiin mas'uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamid ahaa caawa ayanu insha Allah barnaamijka dhow waxa idinku soo gudbi doonaa hadduu Allah qadaro militariga Suudaan ayaa gaashaanka ku dhuftay kulan dhaxmaray hogaamiyaha Suudaan iyo ra'iisul wasaaraha Yahuuda magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa dhawaan waxa ku kulmay hogaamiyaha Suudaan iyo ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu waxaana labada dhinac ay sheegeen in kulankaasi ay kaga wada hadleen xiriirka u dhaxeeya Yahuuda iyo Suudaan General Abdel Fattah al-Burhan oo ah hogaamiyaha maamulka Suudaan oo ku laabtay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa halka kula kulmay saraakiisha ugu sareysa ciidamada militariga si uu kaga gado waxyaabihii ka soo baxay kulanka uu la qaatay Netanyahu laakiin golaha wasiirada iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada militariga Suudaan ayaa waxa ay gaashaanka ku dhufteen oo ay ka soo horjeesteen kulankaasi wasiirka warfaafinta Suudaan Faisal Mohamed ayaa sheegay in golaha wasiirada Suudaan aysan la socon kulankaasi isla markaana aan lagu wargelin waxaana uu sheegay in kulankaasi uu gaar u ahaa Abdel Fattah iyo ra'iisul wasaaraha Yahuuda Netanyahu wasiirka warfaafinta Suudaan waxa uu sheegay in arinta la xiriir la yeesho Yahuuda ay tahay arin ka baxsan awoodda ku meel gaarka ah ee maamulkooda waxaana uu sheegay in golaha wasiirada ee ururka xirfadleyda ah ee muddo ka waday kacdoonka wadanka Suudaan ay hore ugu heshiiyeen in siyaasadda arrimaha dibadda ee Suudaan ay tahay mid u taala waaxda fulinta marka loo eego dastuurkooda wadanka Suudaan waxa ka aloosanaa xiisado siyaasadeed tan iyo markii xilka laga tuuray Umar Hassan al-Bashir oo muddo ka talinayay wadankaasi waxaana saamileyda siyaasadda ku heshiiyay ay iminka isku maandhaafsan yihiin in xiriir toos ah la yeesho